duulimaadkii ugu horreeyay oo ay la socdeen xujayada Soomaaliyeed ee sanadkan 2023 oo ay guud ahaan tiradoodu gaarayso 472 xujay ayaa soo gaaray dalka Sacuudi Arabia iyadoo 126 xujay oo ka tirsan tiradaasi guud ay ka soo degeen geeda diirada ee magaalada Jeddah halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen qunsulka guud Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Axmed Maxamuud Diire Macruuf la taliyaha qunsulida Soomaaliya mudane Cali Nuur Macallin madaxa xafiiska arrimaha xujayada Soomaaliyeed ee sanadkan Dr. Qadar Xaaji Daahir Suleymaan iyo qaybsanaha qunsulida Soomaaliya ee arrimaha xarunta Shimis mudane Cabdalla Xaaji haddaba intii ay socotay maamulka iyo soo dhaweynta xujayadaasi ayaa waxaa xog waran la xiriira safarka xujayadaasi halkaasi ka soo jeeday madaxa xafiiska arrimaha xujayada Soomaaliya Dr. Qadar Xaaji Daahir Suleymaan oo ka waramay waxaan halkan ku qaabilaynaa xujadii ugu horeysay ee ka soo degtay magaalada Jeddah xujadaas oo insha Allah taala hadda u soo gudbi doona magaalada Al-Madiina Al-Munawwara xujaydu alxamdulillah rabbil caalamiin si nabad way ku soo gaareen halkan waxaan u taaganahay runtii soo dhaweyntooda iyo istiqbaalkooda iyo inaan u adeegno runtii waxaan u taaganahay waa martida alle Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan u adeegno xujayda waxaan ugu bushaareynaa insha Allah taala in diyaar leeyihiin yahay leeyihiin adeeg doono haday tahay bictada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo dawladda Soomaaliyeed iyo haday tahay sharikadaha waxaa runtii khidmadiina iyo adeegiina number 1 u diyaara oo mar walba u taagan wasiirka diinta iyo awqaafta Muxtaar Roobo runtii oo aad iyo aad telefoon iyo muxuu runtii soo jeed iyo hurdala'aan iyo wax walba u taagan 24 saacadood inuu khidmadiina iyo adeegiina ka shaqeeyo annaguna runtii aanu u taagannahay maanta halkan haddaba haddii aan u jaleecno dhinaca gegada diyaaradaha ee magaalada barakeysan ee Madiina Al-Munawwara ayaa waxaa halkaasi ka soo degay 274 xujay oo ka tirsan tirada guud ee xujada Soomaaliyeed ee soo gaartay dalka Sacuudi Arabia haddaba xujaydaasi oo si qalbi furan leh ay ugu soo dhaweeyeen gegada diyaaradaha ee Madiina Al-Munawwara mas'uuliyiinta bixtada xujayda ee magaaladaasi ee ugu horeeyay manduubka bixtada xujayda Soomaaliyeed ee Madiina Al-Munawwara mudane Ibrahim Yuusuf Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mudane Macallin Mayre iyadoo soo dhaweynta xujayadaasi kadib ay labadaasi mas'uul ka warameen waxaan joognaa airportka Madiina Munawwara waxaan ku soo dhaweynay falaayga ugu hore iyo rixlada ugu hore xujayda Soomaaliyeed oo ka yimaadeen Hargeysa ilaahay mahadiis weeyaan in ay soo gaareen si nabad ah oo salaamo ay ku yimaadeen magaalada Madiina ay maartay soo gaareen lagu soo dhaweeyay oo soo dhaweysay maartay safaaradda iyo qunsuliyadda iyo bictada intaas marka waa ilaahay mahadiisa waxaan leenahay xujayadeena Soomaaliyeed soo dhawaada mar labaad mar saddexaad dadkii dalka ay ka soo tageenna waxaan u sheegaynaa in xujaydii nabad iyo bad ay qabaan iyo salaam ay yihiin intii iska kaashatay inay maartay soo gaadhaan xujayda ka yimideen wadanka oo ay u yimideen inay gutaan ركن من أركان الإسلام إياك أنو لنا إلهي أقبله أنت هذا نسوق عدي وترى علماء هروش شيئا ترى يكوا كل هذا الناس صعبة وحاول تاجن مدير كي بعثة يو ماركتي كالكالياش يلا رجع عاون لها هذا بقار كم ده حجة الصومالية ما أنت سوق عرتي goobaha barakeysan ee dalka Sacuudi Arabia ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliya uga waramay diyaaradda Daala Online madaarka magaalada Madiina Al-Munawwara halka waxa aad noogu soo qaabilay bicsadii maxaan ku ardaydii mutacalimiinta doctorada baa lagu qaabilay si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh oo qadarin leh waana niman in badan buu muxuu xajka ka soo shaqeyn jiray oo dadka aad u caawin jiray maanta aan la kulanay alxamdulillah rabbil caalamiin haddaba iyadoo duulimaadyada xujayada Soomaaliyeed ay si isdaba joog u soo gaari doonaan dalka Sacuudi Arabia ayaa haatan waxaa soo gaartay in duulimaad hor leh uu ku soo jiro hawada u dhaxaysa dalka Soomaaliya iyo Sacuudi Arabia lana filayo inuu soo gaaro dalka Sacuudi Arabia saacadaha nagu soo aadan